السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالي دامانتين وايدين سلامي ميلو البو أدونك أدك جوكتانو وولاشينو مهارون يا مركليتوت بليز كانالكي قداقيش سبسكرايب لاكتا كومنتيغا ديريجلينتا وحقينا ما انت وحا إنو ودا قصة عجيب هاي إنو ودا سو دوادا قعم فرد قلبي فرنكو سو دوادا qisada sidaan ku bilaabanaysaa qisada waxay ka dhacday dalka Talyaaniga anigana waxaan ka fiirsaday kanaal Jingo kanaal la dhoo qofkii yaqaano qisa marka aan la murugooday waaye waxaan isla walaalaha la wadaag maadaama qisada adiga ku murugo gelisay qisada marka sidaan ku bilaabanaysaa gabar ayaa jirtay gabadhi wiil ay baratay wiilkii maasha Allah way isjeclaadeen markay isjeclaadeen adiga waxay ku heshiiyeen dhaqso inay isguursadaano marka way isguursadeen markay isguursanayeen wiilkan wuxuu jiray 23 sano gabadhan waxay jirtay 23 sano sida normalka ah gabadha asxaabay lahayd ehelay lahayd wiilkana sidoo kale waxay bilaabeen marka inay asxaabti ka go'aano asagii wuxuu bilaabay asxaabti inuu ka go'o ayadana sidoo kale waxay bilaabay asxaabti inay ka harto labadoodii kaliya isku soo koobnaadaano markii dambe tartiib hadan ehelkii ka go'een labadoodii kaliya dad isku ahaayeen markii dambe wiilkii wuxuu bilaabay markii magaalada marayaan qaabkii u labisanayso inuu ka maseero bilaabo gabadhii maalin kasta buuq iyo qaylo maseerkii wuxuu dhalinayaa buuq iyo qaylo markii dambe wuxuu bilaabay gacan ka hadal markuu gacan ka hadal bilaabay wixii tiri bes maanta khalaas waaye haddoo ninkii gacanta ka hadlay oo idilay lama sii noolaan karo go'aan cad ay qaadatay alaabteedii guratay guriga hooyadeedii aabaheedii aaday guriga hooyadii aabeed markii aaday uu isku dayay marka dhowr mar inuu xalliyo oo la hadlo way ka diiday markii dambe maalintii dambe ayadii waraaqihii furiinka ay soo diyaarsatay way soo wacday hadii oo jeclaayna way u waday waraaqihii inay ka saxiixatana way rabtay marka way soo wacday wixii tir waa ku soo socdaa haye meel marka wuxuu ku balamiyay oo discotheque ma la dhahaa meelaha muusiga laga shido meel u dhow meel ah oo ku balamiyay gabadhii meesha markuu ku balamiyo u tagtay markay u tagtay waxay soo xasuusatay inay waraaqihii soo hilmaamtay baawurka dhexdiisa ku soo hilmaamtay marka waraaqiya isugeeytay waraaqiya soo hilmaam baawurkan soo qabsanaya waraaqiya marka asaga inuu u saxiixay rabtaa waraaqiya soo qaadatay gadoon ee saan u soo dheeysay oo wuxuu ku shubay basiino shab waliba wajiga ugu shubay meesha ugu darneed wajiga waay wajiga ugu shubay wajiga markuu ugu shubay isla markiina dabkii ku qabtay gabadhii dabkii ku qabtay war maxaa ka wadaa wala maxaa ii dilaysaa warha ii dilin waa ku baryaa iyadoo calaacalayso qaylinayso ku shiday dabkii ku qabtay dabkii markuu ku qabtay wax yar kadib asagina wuxuu cabay daawo qasiil waxaa la dhahaa kantinjiina anima aqaan magac kale tood daawo qasiil tan muskulaha iyo meelaha urka badan marka lagu dhaqo ay carfaayaan oo dadka caloosha iyo beerka ka goynayso daawo qasiilkii waa asagana markii ambulance markii gabadhan waa laga soo gaari lahay qayladeeda hadii la maqli lahay meesha marka music dheera ka shidnay waa la maqli waay qayladeeda gabadhii marka way gubatay wajiga dhanay ka gubatay gacmihii ka gubatay maxay ahaayeen mar dambe ambulance u imaatay ambulance markay imaatay waxa maqlayay tiri soo gaarayay inuu asagana dhintay wuu dhintay soo la dhahayo maalmo kadib waxay maqashay inuu daawo qasiil cabay oo dhintay gabadhii marka adiga qaliin badan 20 mar qaliin waa lagu sameeyay si waxay u gubatay oo subxaanallah oo bilaadanimo ka baxnimo oo u gubay gabadhii alcamuum gacan labadii gacmood horta way ku weysay laakiin gacan kamida gacmaha waa la gooyay waa eber gacanta kale la wada faraa ka nool ma iyada naftirkeeda qisadina sidaas ku dhamaatay ninkiina wuu isdilay gabadhiina wuu gubay gabadhii alcamuum hadda way nooshahay laakiin xogaa dabkii dhaawac badan uu gaarsiiyay wajigeedii wuu bedelay afku sidii hore ma ahan indhihii wuxuu ku leedahay hadda ani aragtida kaliya ii nool maanta wax ii nool waxa ka jirtay tir inaan dadka arkaayo wayna faraxsan tahay hadda maasha Allah qof faraxsan waaye وانا كاسا قصة انت سيكون ماتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.